Dhakhaatiirta qalliinka wadnaha ee Jaamacadda Maryland, University of Maryland ayaa waxa ay sameeyeen qalliin ugub ah oo noociisu dunida ku yahay wax curdin ah, kaasi oo ah in qalliin lagu sameeyay bukaan 57 jir ah loogu geliyay wadnaha doofaarka. Wadnahani oo ahaa wadne la hiddo-bedelay ama genetically modification lagu sameeyay ayaa loo geliyay bukaan lagu magacaabo David Bennett oo ah 57 jir, kaasi oo qabay xaalad wadno uu shaqadiisu gabay end-stage heart failure. Mana jirin xal kale oo ahaa in la badbaadiyo loona geliyo xubin aanan aadana ka iman ama waxa loo yaqaano xenotransplantation. Waxayna khubaradu go'aansadeen in loo geliyo wadne asalkiisu ka yimid doofaar, kaasi oo hiddo-bedel lagu sameeyay. Qalliinkani oo qaatay muddo 7 saacadood ah ayaa David Bennett lagu sameeyay maalintii Jimcaha, waxaana soo kabanaya xaaladiisa caafimaad. Qalliinkani noociisu uu cusub yahay ayaa keensanaya in tallaabo loo qaado ka maarmidda xubnaha aadanaha oo ay adag tahay in si dhab yar lagu helo, sida uu yiri dhakhtarka hogaaminayay kooxdii qalliinkan samaysay. Master David Bennett ayaa ku jiri doona xaalad si taxaddar leh looga warhayn doono isbedelada ku imaanaya, si loo xaqiijiyo in jirka Master Bennett uusan diidan wadnaha doofaarka ee loo geliyay. Dhakhaatiirta gacanta ku haya bukaankani ayaa rajo wanaagsani ka muujiyay, waxa ayna xuseen in qalliinkani uu dunida ku cusub yahay uuna noqon doono fursad cusub oo muhiim u ah dadka ama bukaanada mustaqbalka u baahan doona in wadne loo geliyo. Hay'adda American Heart Association ayaa iyana sheegtay in qalliinkani uu xirfadlayaasha caafimaad ka caawin doono xal u helidda xubnaha dadka lagu tallaalo oo yaraaday iyo baahida bukaanada u baahan in xubno loo geliyo oo aad u sii badanaya. Waxaana xusid mudan in sanadii aanu soo dhaafnay ee 2021 kaliya dalkaasi Mareykanka ay ka dhaceen qalliino ka badan 3800 oo wadne loogu geliyay bukaano u baahnaa. David Bennett ayaa hadda neefsanaya isaga oo aanan u baahnayn aaladda ama mashiinka neefta caawisa, waxaase ku xiran aaladda kaleeta ee ECMO extracorporeal membrane oxygenation oo caawimaad siinaysa wadnaha iyo sanbabada si uu qofku si saami leh u neefsado dhiigana u tuuro. Qalliinkani hortiis waxaa jiray qalliino kaleeta oo dhowra oo la isku dayay, kuwaasi oo ay ka mid yihiin qalliin bishii December ee sanadii aynu soo dhaafnay lagu sameeyay bukaan u baahnaa in kili loo geliyo, waxaana loo geliyay kilida doofaarka, balse waqti aan saa usii dheereen ayuu isla markiiba maskaxda dhimatay, asigiina bukaankii waqti kadib waa iska geeriyooday. Waxaana la qiimeyn doonaa hadba xaaladda bukaanka David Bennett oo 57 jirka ah kusoo kororta usbuucyada soo socda, iyada oo haddii qalliinkani uu guuleysto ay guul weyn u noqon doonto dadka dunida, maadaama dadka wadnaha ka jiran ee u baahan in wadne loo geliyo ay 20% geeriyoodaan inta ay sugayaan inay helaan wadne loo geliyo.